waqtiga wuxuu ka mid yahay nicmooyinka ilaahay uu na siiyey oo aadka qaaligu ah waqtigaas muhiimka uu leeyahay darteed ilaahay wuxuu ku dhaartay waqtiyada qaarkood ayuu ku dhaartay oo ilaahay wuxuu leeyahay walfajri walayaalin cashrin fajarkuu ku dhaartay xilliga la yidhaahdo muxuu ahay salaada subax oo kale oo waagu baryaayo ayuu ku dhaartay iyo walayaalin cashrin habeenno 10 ah waa habeenada oo maxay ahaaday bisha la yidhaahdo carafada ama dilxija ugu horeeya wuxuu kale ku dhaartay wadduxaa wallayli idaa sajaa xilliga barqinka barqada iyo xilliga habeenkii uu ku dhaartay walcasri uu ku dhaartay walcasri ina alinsaana lafii khusr wallayli idaa yakshaa sidaas oo kale habeenkii uu ku dhaartay saad ogtihiin dadka mufasiriinta culummada fasirta tafsiirka qur-aanka markuu ilaahay wax ku dhaarto macnaheedu waxay tahay muhiimad gooniya ayuu leeyahay shaygaas ilaahay dabcan wuxuu ku dhaartaa wuxuu isagu doono makhluuqaadkiisa laakiin annaga nooma bannaana waxaan allah inaan ku dhaaran marka ilahay wax ku dhaarto marka waxay tahay waa muhiim waa xilliga iyo waqtiga uu ilaahay ku dhaartay ahamiyadda ay leedahay darteed ilaahay wuxuu noo xadiday awqaad cibaadooyinka faradka oo waajibka ah tusaalahaasna tusaalaheeda waxaa ka mid ah ina salaata kaanat cala lmu'miniina kitaaban mawquutan salaada ilaahay wuxuu ku farad yeelay mu'miniinta iyadoo kitaab mawquuta waqti leh aqimi الصalaata liduluki الshamsi ilaa gasaqi اlleyli wa qur'aan alfajri ina qur'aan alfajri kaana mashhuudan وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآيات ويبديهن waxyaabahaas marka waxay tusinayaan aayadahaas uu ilaahay ku dhaartay waxay tusinayaan waqtiga ahmiyadda uu leeyahay intaasay tusinayaan iyo in waqtigaas lagu guto acmaal wanaagsan oo nacfi leh bal rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaba waxaa dhammaan la amray inay ka faa'iidaystaan xilliyada waqtiga firaaqada la leeyahay oo macno la-aan una ku tegin waqtigu lagu mashquulo wax wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaam ilaahay wuxuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaba faidaa faragta fansab wa ilaa rabbika fargab wuxuu kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam nicmataani maqbuunun fiihimaa kaiiru min annaas alsixatu waalfiraaq laba nimco dadka inta badan way ku khasaareen oo ay kama faa'iidaystaan labadaas nicmo waxaa nabigu uu nagu sheegay caafimaadka iyo firaaqada in annaga waqtiga firaaqada aan nahay kama faa'iidaysanno caafimaadkana sidaas oo kale ilan waa la weydoona labadaba mar aan la helinaa jirta xadiiskaas bukhaari ware dabcan labadaas nicmo marka waxay ka mid yihiin nicmooyinka waaweyn oo ilaahay na siiyey addoommadiisa uu siiyey waqtiga marka saasuu muhiim u yahay waqti maxaa la yidhaha marka waqti waa maxay mafhuumu lwaqti waqtiga naftiisa maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaha miqdaar min aلzamaan waa qadar zaman ah qudira liamrin ma oo arrin mucayana loo qadaray oo masalan salaada waqtigaasaa loo qadaray soonka waqtigaasaa loo qadaray kada zamankaas marka haddii la sii fasiro wuxuu noqonaya idraakun bashariyun yucarafu biannahu tuulu lfatrati alfaasilati bayna الnuqطatayni fi الtawaasuli la makaniy
يعني وادرين بني آدم نمو وقف بني آدم كدرين مايو oo lagu qeexay inuu yahay xilli dheer oo kala gooya ama kala u dhaxeeya laba nuqdo laba meel yahay oo aan ahayn makaan oo waxaa laga wadaa axdaasta iyo dhacdooyinka israacaya غير قابل للعكس ما نكون صون نقنايا مثلا زمن كواس عدا ما كون صون نقنا ما كون صون دب مسوق هذا كرت عشان كرت ماضي حاضر كي مستقبل كي كل عكر الوقوع إنه يهي فترة زمنية ولا قياس كره أو سلسلة من أبعاد زمنية يعني كل إيران وقت قياس كير طبعا وقتك مركز دل سوكو وحوي هي هو الحياة والنرش وقتك اللي شيء أيضا والنرش هذا وقت أجرنا لا حياة نور مجرد سادرتت وحد أقنا هي إن إله سبحانه وتعالى بني آدم كأو أبوري سيئون ولا وقت حديدا وكليه إن ير لغاية عظيمة وحن لو أبوري الدنيا أنا وحيتها هاي وجد وين تاسوء إن إلهي أن عابدنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إليه marka waqtiga waxa la rabaa marka in la maareysto oo la maamulo oo si fiican looga faa'iideysto la rabaa dadka marka qaarna way ka faa'iideystaan qaarna kama faa'iideystaan waqtigooda way iska dayacaan waxyaabo aan macno lahayn oo maxay ahayd ma la yaani la yiraahdo ay ku mashquulaan ma la yaani waxa la yiraahdaa waxaan adduunyadana wax faa'iido ku lahayn aakhirina aan faa'iido ku lahayn oo iska ciyaar ah oo lahwi ah ayaa la yiraahdaa dadka marka wanaagsan oo ka faa'iideysta iyo kuwa ku fashilmay waxa u dhaxeeya farqi weyn oo adduunyada nolosha dhexdeeda waxay wadaagaan waxa kamid ah marka labadaas qolada ka faa'iideystay qolada aan ka faa'iideysan dadka yaani naajixiinta waxay awood u leeyihiin inay isu miisaamaan ahdaafta ay doonayaan inay xaqiijiyaan iyo waajibaadka ay qasab tahay ama laazim ay ku tahay inay sameeyaan taasna waxay ku imaanaysaa waqtigaaga oo aad maamulato oo si fiican u maareysato ahmiyatul waqti marka hadana taas markaan ka baxno waqtiga ahmiyadda uu leeyahay maxay tahay hadalkii hore aan soo marnay waxaan ka garanaynaa inay waajib tahay in ihtimaam la siiyo وقتها وأنا مورد من الموارد التي أنعم الله علينا وحيابها موارد وحيابها خيرات كإلهي نسيه واي وحيابها إلهي نوهي بيه واي وقته ولو نوه نعمي لا نربه إن لقى فائديسته ووقتها نبي عليه الصلاة والسلام سقوا نقل دردار معي أنا وقتي أسكت ضيعين أو وح معنى له معنى عليه أن أكون مشغولنا حون اللي هي اغتنم 5 قبل 5 شن كفائدة شن انت سكو إيمان شبابك قبل هرمك لأن يرنا كفائدة انت أذن دقوبين وصحتك قبل شغلك انت عافيمات كان كفائدة انت أذن حنون سنين أو عذر كو إيمان يعني واحد كرتل هذا يحوق لي هذا هاي markaad caafimaad qabto haday cudur ku yimaado adiga dhan waa ku dhamaanaysaa marka caafimaadkuna waa nicmo ilaahay ku siiyay ka faa'iideyso intaadan xanuunsanin wa ghinaaka qabla faqrika hodantinimada ay marka culaysatana ka faa'iideyso intaadan faqiir noqonin wa firaaqaka qabla shughlika firaaqadaadana ka faa'iideyso intaadan mashquul noqonin mesela markaad dhalinyaro tahay oo aadan xaas lahayn oo caruur lahayn waxaad haysataa waqti fara badan firaaqaad haysataa mashquul ma tihid marka dhalinyarada ka faa'iideyso dhalinyarada waxaa kula jirta firaaqada yani dhalinyarada waxaa ka faa'iideyso firaaqadaadana ka faa'iideysaa lagu intaadan mashquul noqon waxaa la ogyahay haddii aad kullama aad weynaato ood guri yeelato ood caruur yeelato inaad mashquulayso وواجبات كلا كسارة مركا أنت هذا مشغولين كفائدة سوء فراغ ذات وقدم بيستي وحياتك قبل مماتك أما موتك
noloshaadana ka faa'iidayso intaadan dhimanin haddaad dhimato camalkaaga waa go'aya yani camal ma samaysan karta intaad nooshahay marka fursad haysataa fursad iska faa'iidayso uuna leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu marka wuxuu noogu soo koobay shantaas eray kalimaad muujaza oo baliiqa waa hadal kooban oo ku fadhiya macno fara badan shantaas shay ka faa'iidayso intaa shantan kale ku imaanin macnaha yani waa daraasooyin badan laga sameeyay hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo kutub badan laga qoray kutubtaas laga qoray xadiiskan iyo erayada nabigu yiri calayhi salaatu wasalaamna waxa la makaatibta iyo meelaha kutubta lagu iibiyo iyaga uu iibsi badan oo maxay ahayd aad iyo aad muhiim u tahay arintaas waxaad kaloo garanaysaan qisadii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo boqorkii masar markuu yani riyooday uu ku riyooday 7 yani oo saco cujaaf ahoo caata ah markuu fasiray riyadaas nabi yuusuf wuxuu u sameeyey khutta zamaniya qorshe oo xilli ku salaysan oo si waqtiga loo kasbado sanawaat الrakhaa sanawad 7 ahay oo maxay ahaday uu yidhi barwaaqaa dhacayso 7 sano 7 sano waxaa ka dambaynaysa abaar 7 sano marka barwaaqada ka faa'iidaysto yidhi qorshahaas uu dejiyey marka waqtiga in laga faa'iidaysto waa marka ay tusinaysaa arrintaas oo wuxuu yidhi 7 sano si fiican beera u beerta isla markaasna kayd samaysta 7 sano idinku filan 7 sano soo socoto ka dambaysa waxay noqonaysaa abaare waxana usluub cilmi uu sameeyay oo looga faa'iideysanayo waqtiga sanawaadkaas abaarta soo socotana laga muxuu ahay tababushasanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala casrigan hadda aan noolnahay wuxuu dadka ugu yani siiyey ajhizo iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaabo waqtiga u beeqaaminaya dadka markaas mas-uuliyaddeena marka way sii ziyaadaysaa mar haddii ilaahay uuna siiyey xilligan aan ku jirno ood garanaysaan casri alcawlama casri teknolojiya casri infijaari almacluumaat oo wax walbaba ay kugu jiraan maxay mobilkaagan smartiga ah ay kugu jiraan aad ka helayso internetkii wax walba aad ka helayso marka waqtigii wuxuu noqday waqti hadda yani beeqaamintiisu way sahlan tahay laakiin haddana nicmo kastaba niqmay wadataa haddii internetkii iyo maxay yidhahdaa mobiladii iyo ay soo bateen oo maxay yidhahdaa teknolojiyadii ay horumartay haddana waxaa dhacday in lagu mashquulay oo waqtigii intiisa badan gaar ahaan dhallinyaradii odayaasha xataa waa ku jiraan hadda waa bilaabeen iyaguna inay ku mashquulaan waxaas oo waqti badan lagu bixiyo inta la shaqaysa lahay ama la cibaadaysa lahay ama muxuu ahay khayr kale la samaysa